munaasabad si heersan loo soo agaasimay oo lagu xusayay dhalashada nabigeena suuban nabadgelyo xarsi korkiisa ahaatee ayaa lagu qabtay xaafadda ay Soomaalidu u badan tahay ee Ringibi ee magaalada Stockholm. munaasabadan oo ay soo qaban qaabiyeen Jaamacadda Sheekh Maxamed Gurceel waxaa si weyn uga soo qayb galay dad aad u fara badan oo ka mid ahaa muslimiinta ku nool magaalada Stockholm iyo qaaradda Yurub. munaasabadan oo lagu soo bandhigay muxaadarooyin diini ah oo u badnaa fadliga ay leedahay xurmeynta iyo weynaynta bisha Mawlid oo ah xilliga uu dhashay nabigeena suuban nabadgelyo xarsi korkiisa ahaatee. culimo oo diinkii goobta ka hadlay ayaa sidoo kale guubaabiyay ummadda Soomaaliyeed iyo dadkii kale ee ka soo qayb galay in ay muhiim tahay in lagu dayo sunnada nabigeena suuban nabadgelyo xarsi korkiisa ahaatee oo aad loo xuso maalinta uu dhashay, taas oo muujinaysa jacaylka loo qabo nabigeena suuban nabadgelyo xarsi korkiisa ahaatee. waxaan iskugu nimid ihtifaalkii nabigeena suuban sallallahu alayhi wa sallam maxaa yeelay nabigeena Muhammad alayhi salaatu wassalaam sida aad ogtihiin inta aan uusan ka hijroon magaalada Makka ee barakaysan 13 sano ayuu nabigu dacwada diinta islaamka tawxiidka kaliya uu ugu yeerayay reer Makka ayaguna ay ku dhibayeen ay wixii dantoodii iyo maslaxadooda ay ku jidhay jannadana ay ku gali lahaayeen ayuu nabigu ugu yeerayay ayaguna way ku cadaabayeen asaga iyo wixii raacay. culimo ayaa waxay ka qortay kitaabo waaweyn oo aad u fara badan nabiga siiradiisa salawaatu rabbi wa salaamuhu alayhi. aan raba markii aan caawa ka hadlo waxay tahay wadankeena afartiisa gees maanta dhibaatada haysata waa ka waraysan. maxaa haaya abaar, maxaa haaya col, maxaa haaya biyo la'aan, maxaa haaya rafaad, maxaa haaya dadkeena inay qahayaan, dhallinyaradii inay qahayso ay badaha ku dhamaanayso, waalidiinteena halkaan joogay ilmahooda in carbo caawada kurba ku hayso xabada lagu dhufanayo. war walaalayaal miyaana dhibanayn ilaahay markaan ka hadalno war hadda wixii noodana kulli ina wada taqaaniin baan u maleynayaa rasuulka aan ilaahay ku barino oo aan dhahno ilaahay oo imtixaanka ma qaadi karnee ilaahu naga qaad aan dhahno. markii hijrada lagu jire lama adina Allahu ila rasuulihi bil hijra ilaahay markuu u idmay rasuulkiisa inuu haajira هاجر معه أبو بكر وحال هاجر أبو بكر. قيل في السير سيرت وحال قوري أن أبا بكر كان يجري أمام النبي صلى الله عليه وسلم مركي وضد مدينة الله صعب أبو بكر إنه النبي صلى الله عليه وسلم هرتي سأرداي ثم يجري خلفه مرنا قداشي سأرداي ثم يجري عن ميمنته ثم يجري عن ميسرته أفرتك يسوع رسولك صلى الله عليه وسلم كأرداي. waxa ayna munaasabadaasi ku soo idlaatay si wanaagsan. bisha Mawlid sanad kasta waxaa dunida laga xusaa xilligii uu dhashay nabigeena suuban nabadgelyo xarsi korkiisa ahaatee. waxa ayna dadweynaha muslimiinta ah iyagoo faraxsan iskugu soo baxaan masaajidda iyo goobaha kale oo loo asteeyay in lagu xuso dhalashada nabigeena suuban nabadgelyo xarsi korkiisa ahaatee. Maxamed Abdulqaadir Daahir, telefishinka caalamiga Somali Cable, Stockholm, Sweden.